waxaa la yaabay maskax la'aanta meesha iga imaatay 20 sano wax yar leebi dheerbo yaa saas way taynaysaa u joogo waxaan leeyahay samee wixii baa hilmaamaya cabaar kadib haddana madaxa inta xoqoqdaan waxaan leeyahay alla wixii maxay ahayd aarabti inaa samaysid wixii aan doonay maxay ahayd marmaraas suuq inta aado aan soo hilmaama xitaa wixii aan doonay guri ku soo laabanaya aniga le miyaa waxaas mise dadka dhanaa ila qabo waa yaabanahay hadeertaan qudaara doontay lacagna ma wato suuq anoo saas u geli raba ah soo xasuusta inaan lacagta ka soo tagay أنا مسك على أنت نسيي لا ما كان قرآن أسكو أقريوي بسم الله هذا العقد وان سوق قاطع السوق أيان سوق على سيدا وجدان وان أديجنا يا أديج وحن جدنا يا يحين كرا أسبوع أو كلا أديج أساسا وأديج تا أسبوع وحين يا أيان سوق كده حكتها مقصول على السوق ما دام علم يجوري جوجان نشقد جوري إيتالو معلنك السوق اللي بنتاجنا كرا وأنا هالمر قدرت هذا أتجدتها وأد فريتك كشتاه هدي قال لكن كان سيشود مالك السوق عادي كده تاسوا ماشي ده لكن أنا وهالمرة أيان قطع قدرتي ده دقير ما قطعه وحيابها سكلتك ما قطعه إن فاكت دقير ما بكرسنا بدقيرت عادي وفي عن تاني يقولوا واتشعلها لكن ده كله جري يقولون إنه المعون عن دقيرته تن عجار كايس المكذب بس على عنا دقيرت كلته ما تشعله مركز دقيرت عجار كوا قدرنا عادي وجعلنا دقيرت عجار كأقصينا بس لا تايو أنا حتى مركز كرنا إن صدق دقيقة يجوا بس لا تاي waxaa kaloo aad u muhiim ah fruitska qofka markuu fruitska u badsado jirkiisa ka muuqanaysa xitaa vitamin C u baahan tahay fruits waxa u baahan tahay biyo badan inaad cabtid si xanuunadan badan oo hadartan anaga hadaa Soomaalinahay nadaashaday oo dhibaatada badan uga haya sida sokorta iyo waxyaabahaas oo dhan aysan ugu dhicin waa inaan fruitska badsanaa aan saliidii cusbada waxaas iska yareynaa aniga xitaa waa ku eedeysanahay meeshaas marka qaar cusbada iyo waxaas iyo anoo waxaas arkayaaba cuntada beerka u dhigay inkastoo aan aad uga badin laakiin se waa inaan iska yareeyno oo aad la iskaga yareeyo oo sokorta la iska yareeyo shaah ayaantan sokorta cutub noqdayba shaah xitaa cabitaankiisa la iska yareeyo biyaha cad la badsado fruitska la badsado waxaas la badsado caafimaad aad u far badan ayaa laga helayaa adigana way ku fiican tahay caafimaadana ku noolaanaysaa adoo yar xanuun uma dhimanaysid taxadarka muhiim u aad u yahay hadda dadkii way soo baraarugayaan dadkii reer magaalo noqdeen sokortii waxaas ay too dad yar bay ku hartay inay cunaan iyo cunisteedaba mooskan aad u fiican yahay mooska cagaarka matoke ayaa la dhahaa moos cagaar ma aqaan Soomaali wax lagu dhaho mooska cagaaran aad u wanaagsan yahay subaxii hadaa inta mooska cagaaran aad karisid 5 xab 6 xab amal oo baradho yarna aad ku dadhido 2 xab amal ah yaanyadii iyo wixii iyo saliidan aad ku yareysid meeshaas uga aad wanaagsan kaaga soo bixayso canjeerada ilmihi ku cuni karaan sidiisay xitaa u cuni karaan oo asaga protein ka samaysan waa adoo hilib iyo digir cuno kale uu ka dhigan yahay mooska cagaarka ayaan laga seexanahay faa'iido aad u badan uu leeyahay aniga marmaraa soo gadaa inta badan ma soo gado ma jecla ani marka 2 jeer ilmaha u kariyaba maalin saddexaad kale igama cunaayo marka ma soo badiyo wax yaraan ka soo gadaa mooska cagaaran mooska kaleeto ay aad u jecel yihiin mooska naga kaleeto macaan mooska Soomaaliya hadana waa moos jecelnahay mooska kale aad u jecel yihiin ilmaha waa u shiidaa way cunaan aan xitaa marmara wajiga marsadaa intaan jajabiyo aan wajiga marsadaa wajiga liisho kaaga dhigaya waxa dareemayaa in raaf wajiga markuu yahay kaleeto smooth inuu kaaga dhigayo oo wajigi naxariis aad dareemaysaa marka wajiga mooska marsatid hadda 2 jeer aan marsado usbuucan gudihiisa baradhadana waa gatay baradho aad u badan aan gatay chipsi waxaasayta ma sameysana anaka laakiin baradhada aad u kariyaa ilmaha aad u jecelahay inaa u siiyo ilmaha inay korinayso iyo wax saas ah maqlay ilmaha inay noo karaan rabnaa caafimaad ay yeeshaan strong ay noqdaan noo weynaadaan ilma caafimaad qaba ay noqdaan bahashan waxa waaye qamid sareen miya okay meeshaan cuntadii hadana duubaaya digirta kaleeto oo waaweynka oo hadaan ku qabtay Kenya ka baxda inta badan wadankanaga inay ka baxda ma aqaan digirtaas ma bislaataan ku dhagax waa ka adag tahay waxay ku saarnaanaysaa 5 saacadood dab saarnaane wax 5 saacadood dab saarnaana ani gaas ah karsada dhuxul ma shito gaaska way iga dhameynaysaabo waa digir waalan digirta kala gataa salmkadan gataa daqiiqada bislaanaysa taas aad jeclahay mana la cuno digirta aad ilaahay Amerika daa kirisid xitaa oo 5 saacadood xitaa dabka ay ku saarnaato xitaa wax ka cunaa malahan ma la jecla marka wakaasa vlogana maanta ka soo sameeyay meesha wakaasa meeshaan deganay aniga qudaarta balbal waaye waa magaalo aad u fiican caanaha balbal waaye caanaha waxaan ku dhahay magaalada aan joogo nimcada rabbi lagu jira caanaha dadka
sidee u gataan waa yaabaysaa haddana lo badan ay magaalada leedahay caanihi waa raqiis meel kasta caanaasaan u yaala 5 litir 6 litir 7 litir ee halka cud maalintii shubanaysaa caanaha lo-dan ka hadlaaya caanaha lo-da aad u jaban tahay litirkii waa $0.5 maalintii can you imagine $0.5 waa litirka caanaha ah caanaha shax lagu karsanayaa sidooday u cabiyaan juuska xitaa ku dhex shiidanayaan dadka ani laakiin ilaahay amarka ilmaha markaas caanaha lo-da iga xanuunsadaan haddii iga cabayaan waxa ana taas oo kale u siinaha dadka u siiyaan ilmaha caanaha geela ayaa hadda u rukuma carruurta caanaha geelan siiyaa caanaha geela calcium badan uu leeyahay dadka dhahaan waa rajaynaa inuu calcium leeyahay laakiin ilmaha hilib ma ku koraayo ma ku cayilaayo ilmaha Soomaalida haddana waa iska dhuuban yihiin oo waa iska nafir yihiin inta badan waa dhuuban yihiin soo cunugii dhuuban oo nafta kasii baxay soo yara caanaha lo-da daasisid cunugu ku xogaa hilibaa galaayo laakiin cunugii caanaha lo-da u daran yihiin oo cunugi uu xanuun ay u keenayso ilmihii waa inaad ka joojisaa ani hal mara ku bilaabay wiilka yarka caanaha lo-da caanaha lo-da markuu 2 maalin iga cabay abteedka ka xirma horta cunto dhan wuu iga diiday waxba ma cunaayo wax ma cabaayo cunugii bicad waxa ahayn ma cabaayo wax kale juice xitaa ma iga cabaayo kaleeto liina daas oo miir xitaa ma cabaayo marka waxaan ogaaday cilada inay tahay caanaha lo-da waa ka joojiye laakiin dadka waaweyn anagoo kaleeto waa cabi karnaa cumrigan ma umaleynaa inay caano cabaayo dadku way cabaan laakiinse ma aqaan inaan shax ku dhex karsado maahan caano sidooda ani ma cabo meeshaan afkaadhadii hadda imaanay afkaadhada aada u jeclahay I love avocados ayadoo sideeda xitaa intaan jartaan saartaa cuntada bariiska ku cunaa canjeer hadaa cunaayo waa ku cunaa afakaadhada waa shiidanaa 10 xabo afakaadha $0.5 la iga siiyo $0.5 10 xabo afakaadhe oo saas u waaweyn waa u jeedaan waa hadda waa ceerin dhagax waa laakiin waa huuriyay ayada iyo mooska inta isdhexgeliyo oo juwaan ku riday aan huuriyay marka way bislaan doontaa insha Allah way bislaanaysaa 3 bir gudaheed ayada dhan way bislaanaysaa wixii bislaado dhan fridge-ka wada gelinaya wixii xogaa adayga juwaanka u sii deynaya 3 bir kadib inaan shiidaan bilaabaya hadda waa ceerintii usbuuci horaan ii taal oo bislaa deertaan afkaadhada ninkaaneeto maalinta afkaadhada saana loo keenaa xitaa afkaadhada maalintaan oo kale dadka qudaarta beeriga keenaya in iska dhameeyaan ay rabaan raqiis ka siinayaan sanad dhan lagu buuxinaya intaas aan oga haraya afkaadhada hadalkeeda channelkan waxaan u furtay inaan luqadda Soomaaliga iga dhumin oo aan luqadayda ku hadlo markaste I'm telling you dhibaatada iga haysata af Soomaaliga Ilaahay oo kaliya og hadda saana uga hadlaaya confident ah maanta saana uga hadlaaya laakiin marka qaar waxaan dareemaa markaan dadka la hadlaayo in xataa hadalki aanan isku aadin karin xitaa xarfihii waa iga kala dhumayaan markaas xabad Ingiriisan soo qabanaya xabad Soomaaliyan soo qabanaya xabad Soomaaliyahan ku kabaaya waxaasoo kale looma baahna qofka Soomaaliga waxa la rabaa inuu luqadiisa yaqaan qof kasta luqadiisu sharaf ku leeyahay qofka markuu haddana dad uu la hadlaayo ama dhibaato la xalinayo ama wax ay jiraan waa inuu ku hadli karaa luqadii oo fasax ay tahay oo hadalada isku aadin karo oo luqadiisa uu ku cadgoosan karo xitaa oo wuxuu rabo uu ka hadli karo oo dareenkiisa uu ku cabiri karo luqadii oo si fiican isku toosiye laakiin si markii xabad Soomaali xabad Ingiriis ah ku dartid wax ku fahmaayo malahan ilmahaaga xitaa khasaaraha meeshaas ka imaanayso waxay noqonaysaa lost generation luqadda aan dhibaato weyn iga haysatay waan yaabi aad anaa isla yaabay xitaa saan u hadlaaya iyo sida aan noqday Kenya joogaa inta ugu badan nolosheeda Kenya joogay anoo aad yaraal keenan ilka xitaa Nairobi ay ugu dhaceen qof weyn ah maanta ilmihi xitaa meeshii luqadda Soomaaliga iga baran lahaayeen ilmihina Soomaaliga ma fahmayaan aniga Soomaali fiican kuma hadlaayo waxaan go'aansaday channelkan furay Soomaali fasax inaan ku hadlo markasta Soomaali fasax inaan ku hadlo isku dayaya hadda mahayada Soomaaliga aan baranaya Soomaali fasax oo luqad kale aan ku qasin inaan ku hadlaan isku dayaya inta badan saasana ku sii soconaya idinkana sidoo kale qofkii rab inuu luqadiisa barto qofkii rab inuu luqadiisa iska dhiso carruurtiisa uu baro luqadaaneta waa dhaxalka awayaasheen waa dadka naga ku soo hadlaa awayaasheen abayaasheen luqadda waa muhiim waa identity-giisa qofka marka ay dhuntana qasaar weyn u imaanay qasaar aad weyn ayaa u imaanay uu iska soo kabanay mid kale aan waxa ma bijecliba qof aan la hadlaysaa wax serious ah ka hadlaysan ama ganacsi ama wax hadan luqadii ma ku hadli taqaanid ba luqadaadi waa ku hadlaysaa laakiin luqadii dhan waa jaban tahay luqad jaban qofka markuu ku hadlayo sharaf darra oo arka aniga taas waa sharaf darro luqadaada haday jaban tahay Soomaaligaaga haduu yahay Soomaali la jajabiyo la qarbuday oo xabad Soomaali xabad Ingiriis ah ku dartay hadaa tahay cumrigan aan leegto 20 sano kor u dhaaftay sharaf darra oo arka marka aan luqada hadda waa iska dhisaaya mahmahay badan hadartaan
ما هي aad u badan hadeertaan xitaa soo download gareystay offline video yaal ahaan youtube ka soo download gareystay mahayadii akhrisanaya luuqadayda inaan ku hadlo isku dayaya carruurta xitaa inaan kula hadlo inay luuqada si fasax ayagan ay igula hadlaan wakaasa qudaarta hadda gurigaan keene mooskii liintii wixii oo dhan fridge kan gelina wixii fridge la gelinayo wixii kaleeto la hagaajinayo dhan waa kala hagaajinaya خير بدنا يا إذن كنا في channel كان subscribe سارة جهد بدنا سوق ليا والله فيديوهاش عن ضوبايو وحسهلنها وملاينينا جهد بدنا سوق ليا ددالا قليا يعني وقتي وخادتا دوبست وحاسودن وقتي قادنا يسا editing iyo isku habeynta iyo waxaasoo waqti kale ay gelinaysa editing iyo luqadda Soomaaliga iyo YouTube ka Faris meeshaas ooga baxay waxaan kaleeto oo rabaa إن شاء الله إلهي نفتح دون قسم إلهي عمر دين هالنسيه هرت أنا كودن إلهي كبرينا تاسي عافيمات وين بريتو وحي كبلوضة ما أنت أو قميص بري أو جمعة ما أنت وقميص بري وجمعة ده وحي كبلوضة وحاربنا أنا قبلها درس كيجا إن أنا early in the morning أم بحنو هل ساعة كهرنا بحنو 6 meelahaas ama 6 daad aan baxno oo socda aadno meel adiga 40 daqiiqo ama loo soconayo oo guriganaga markii laga tago baadiya ay jirto oo wadada dadka dhan subaxii way ordaan I'm telling you Soomaali hal qof xitaa kuma jiraan dadkaas waa Kenyan kulligood waa Kenyan waa dumar iyo rag kulli way ordayaan xitaa gabdho dhuudhuumana waxa arkaysa subaxii they are going for a walk way socdaan wadada saaran yihiin way ordayaan way soo dhididayaan dadka annagana insha Allah waxaan rabnaa aniga gabdhaha dariskayga horta ani waa barabeyba markasta waxaan is dhahaa bax laakiin fulaya ahay hadaan wadadaas qaado oo 40 daqiiqo camal lagu soconayo waxaan is dhahaa ama dadku qashqashaadaan ama cabsi ay gashay inta badan ma baxaan kaliya laakiin si berito gabdhaha dariskayga gabdho badan waxaa jira raba inay iska ridaan culays iyo miisaan iyo weight iska ridaan aniga ilaahay amarkii waa dhuubanahay alxamdulillah waan ku farxsanahay hilib iyo waxaan iska ridaaya ma qabo laakiin si ina dhididaan raba oo socdo oo subaxi aan active noqdo wax wanaagsan aan sameeyaa raba caafimaadkayga hadda waa yarta dhalinyaraatay 25 sano meelahaas aan hadeertaan sii galaya ma dareemaysid hadda markaa yarta waa caafimaad qabtaa caadi iska tahay waa iska faraxsantahay waxa hartida cunaysa laakiin maalintaas 30 ka dhaaftid ama 35 gaartida dareemaysa caafimaadka faa'iido leeyahay markaas wixii qashana cunto dhan jirkaaga xanuunka bilaabanaya cuntada caafimaadka la iyo socodka waa mucjizo xataa maskaxda dadka waxaa la dhahay xitaa dadka active ay noqonayaan maskaxdaada xitaa si u shaqeynayso waa yaabaysaa xitaa fikradaha kugu soo dhacaya maskax caafimaad qabtaa yeelanaysa maca salaama waa inoo birita insha Allah